kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaan nagu cusub tahay subscribe dheh oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. deganaan inaad wax ku fahansiiso dadka qaar way ku adag tahay iyadoo marxalad adag ama wadci iska caadi ahba lagu jiro intuba. Rakaab la socday diyaarad ka duuli lahayd magaalo ku taala dalka Ingiriiska kuna wajahnayd magaalo ka tirsan wadanka Spain ee isla qaaradda Yurub ayaa muddo diyaaradda ay dhex fadhiyeen kadib loo sheegay in uu soo daahay duuliyihii diyaaradda kaxeen lahaa balse qof ka mid ah dadka rakaabka ahaa ee diyaaradda raaci lahaa ayaa gadaal ka soo istaagay waxaana uu soo xirtay dharkii bayloodka ama duuliyaha uu diyaaradda ku kaxeen lahaa. jawi ahaan waa ay ka duwaneyd sidii ay rakaabka filayeen oo rag iyo carruur iyo hablo isugu jiray oo diyaaradda la socday. Michael Bradley waxa uu ku jiray safar dalxiis ah oo xaaskiisa iyo wiil uu dhalay ay la socdeen. inta aanu aeroboortka gaarin ayuu maqlay in duuliyihii diyaaradda uu soo daahay kadib wax uu horay u soo qaatay leysankii caddeynayay in uu duuliye diyaaradeed yahay. markii uu garoonka diyaaradaha yimid ayaa booliiska uu la xiriiray adeegiisii ayuuna u bandhigay sida uu duuliyahan sheegay. booliisku waxay dib ula soo xiriireen 38 ilbiriqsi kadib waxaana laga codsaday inuu diyaaradda kaxeeyo isaga inta aanay safarku bilaaban. waxa uu ka soo baxay halka diyaaradda laga hogaamiyo waxaana uu ka dhaadhiciyay rakaabkii sida ay wax u jiraan oo si wanaagsan ayuu wax ugu sheegay. qofna kama aanu diidin in uu diyaaradda kaxeeyo. shirkaddii duulimaadka waxa ay caddaysay in ay hubisay in Bradley uu duuliye yahay inta aanu loo ogolaan inuu diyaaradda kaxeeyo. qofka in la aamino ayaa ka wanaagsan in lagu kalsoonaan waayo. qisadan ayaana isoo xasuusisay mid la mida doon ayaan 10 sano ka hor aniga iyo weliba dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaan u raacnay dal Afrika ku yaala. waxaana markii aan saacado saarnayn waxa ka halaabay matoorkii doonta lagu waday. waa la isfiiriyay waxaana nimankii naaquudayaasha doonta kaxeynayay ay xaaladdu ku noqotay mid ciirsi la'aan ah oo ay wax ka qaban waayeen. mid ka mid ah dhalinyaradii doonta nala saarnayd ayaana caawiyey oo Ilaahay amarkii u fududeeyay in matoorkii laga quustay uu hagaago dibna u shaqeeyo. safarkeennii ayaana sidaas ku sii wadannay. xirfadaada mar baad ku badbaadisaa kuwa aan u malaynayn inaadan waxba qaban karin. sidee u aragtaa daawade? bal kommentiga nagula wadaag muuqaalkan iyo weliba arrimahaas aan soo gudbinay. haddaad nagu cusub tahay subscribe noo dheh. haddii aad hore noola joogtana waa mahadsan tahay. muuqaalkana like noogu dhufo. mahadsanid. daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.